madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo socdaalkiisa nabadda ku maraya deegaano ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya wuxuu maanta xarunta madaxtooyada Galmudug ee magaalada Galkacyo uu kulamo kula qaatay madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf iyo xubno ka mid ah golihiisa xukuumadda. kulamada ugu waaweyn ee madaxda Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku yeelanayeen magaalada Galkacyo waxa ay diiradda ku saarayeen xaaladda nabadeynta dalka Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta magaalada Galkacyo. dadweyne kamid ah kuwa ku dhaqan magaaladan ayaa sida daadadkii oo kale u soo buux dhaafiyay wadada laamiga ah ee isku xidha magaalada ilaa madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug waxaana dhammaantood ay muujinayeen dhiirinaantooda ku aadan taageerida madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa. Axmed Ducaale Geele Xaaf madaxweynaha martida loo yahay ee Galmudug ayaa xarunta Galmudug ka sheegay ahmiyadda ay ka dhigan tahay in dadweynaha ku dhaqan magaalada Galkacyo uu meel fagaaraha kala hadlo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. galmudug maantay nasiib waxay u yeeshay inay maaragtay aad u soo dhaweyso madaxweynahoodii dowladda federaalka ah iyo wafdiga. marka ugu horreysa waxaan idiin sheegayaa madaxweynaha waxaan rabnaa inaan soo dejinno Galkacyo. dhulkii ugu horreeyana maanta aan ku korsayaana inaan siinaynaa dhulkii ugu silahaa insha allah. waxaan rabnaa inay noqoto meeshuu beeshiga ku qaato mustaqbalka. waxaan markaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha iyo maaragtay maamulka iyo dadka aad iyo aad maaragtay bannaanka maanta u soo baxay oo halkan jooga. waa idin salaamaynaa. madaxweynaha waad soo dhaweyseen. waxalaaliyo wixii madaxweynaha aan uga baahnaana waa u dhiibaynaa maantay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Galkacyo ku micneeyay inay tahay magaalada dib u heshiisiinta Soomaaliya maadaama siyaasiyiin iyo xubno hore xilal uga soo qabtay dalkan ay ka soo jeedaan magaalada Galkacyo. waxaan rabaa magaaladan Galkacyo inay noqoto hooygii iyo hooyadii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. waa magaalo taariikhi ah, waa magaalo magac weyn, waa magaalo ay ka bilowdeen halgankii ugu horreeyay ee maxaan ku yiraahdaa xorriyadoonka dadkii ugu firfircoonaa ay ka yimaadeen siyaasiyiinteennii ugu wanaagsanaa ugu horreeyay allah u naxariistee Cabdullaahi Ciise barnaamijka ugu horreeyay Soomaaliya. barnaamijkii ku xigay Cabdirashiid Cali Sharmaake allah u naxariistee oo kadibna noqday madaxweyne allah u naxariisto. waxay ahaayeen runtii dadkii Soomaaliya midnimadeeda ka shaqeeyay oo ay ahayd inaan sii xoojino inaan wadno ma aha inaan dib u noqonno. socdaalka nabadda ee Farmaajo iyo wafdigiisa ay ku marayaan deegaano ka tirsan gobolada dalka imikase ay ku sugan yihiin magaalada Galkacyo waxay qayb ka tahay socdaalkiisa nabadda ee dalkan uu ku marayo. ha yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wafdigiisa maalmaha soo socda waxaa la filayaa in socdaal qayb ka ah midka nabadda dalka Soomaaliya uu ku maro deegaano ka mid ah gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Galkacyo.